ciidanka mayalka iyo mowqifka adag ee difaaca Tigreega ayaa intay tallaabeen xuduudda deegaankooda la wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha deegaanka Axmaarada, kuwaasoo ay ka mid yihiin magaalooyinka Sokoota, Qobo iyo Waldhiya. sidoo kale waxay la wareegeen 4 degmo oo ka mid ah deegaanka Canfarta kuna yaala gudaha deegaankaas. ciidamada difaaca Tigreega ayaa guulo waaweyn ku geeraray toddobaadkan inay ka gaadheen gobolada Axmaarada iyo Canfarta oo ay jabiyeen ciidamadii huwanta ee Abiy u diray. ciidamada difaaca Tigreega ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay shacabka Sokoota, Qobo, Waldhiya iyo kuwa 4 degmo ee Canfarta hubkii ay dawladdu u qaybisay inaan laga qaadaynin oo ay haysan karaan, balse ay guryaha dhigtaan oo aysan ku soo fiiqin dhinaca ciidamada difaaca Tigreega. isla markaana ciidamada difaaca Tigreegu aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta looga sameeyay goobaha ay qabsadeen iyo sida uu shacabku ula shaqeeyay. waxaana ku booriyeen shacabka goobahaas ay qabsadeen ee deegaanka Axmaarada iyo Canfarta ka mid ah inay sii joogteeyaan wada shaqayntooda si loo jabiyo deerka Abiy oo ku doonayo inuu dhargii dib ugu soo celiyo, isla markaana uu kaga takhaluso dastuurka dalka iyo nidaamka federalismka qowmiga ah. waxaa xusid mudan in ciidamada difaaca Tigreegu ilaa hadda darbi hortaaga ay leeyihiin, goob kasta oo ay tallaabo u qaadaanna ay jabinayaan, iyadoo taas loo sababeynayo maadaama oo ay xaq u dirir yihiin oo ay difaacayaan waalidiintood, walaalahood iyo ubadkoodii. بالتصرف يا بارزنا يا بارزنا يا بارزنا يا بارزنا